iimaanku shaygu qiraa lagu qabooba in raxmaanka qowlkii fahmaa soor maqaayibe ee qololkii fardowsiye jannuu qoorsan weligiye qaangaadh haddii aad tihiin qiira lagu beeray waxyigeenna qiimaha ku sugan quursi ka ilaasha qur-aanka iyo sunnaha la ysku ladhay yaan la kala qaadin qaadaa dhigoodana bartiya sida wax loo qeexo oo tafsiirka waa lagu qoyaa fura quluubtiinna qiyaamaha xaggiisaa dhowaan loo qulqulayaaye dadyow qaadirkeennii wacnaa qaata amarkiisa alxamdu lilah wahanaau lilah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما ثم ما بعد وحين نكبل بين تفسيرك وسورة البقرة آية بقول سديتني تضبع قال الله تعالى إلهي بأوحد أحل لكم وحل يدين حلالي يدريه ليلة الصيام هبينك بشر رمضان الرفث إلى نسائكم إن دمركين أوق الموتان هن لباس لكم دمرك درب يديه وأنتم لباس لهن إذن كنا درب أوتينيه علم الله الرب وحو أقادوا أقيهي أنكم إذنكم كنتم من هاتين تختانون أنفسكم نفيهن إلى خيامين إسان ووحل إذن ديري حدا إسان فتاب عليكم إذن كتوب بلي وعفا عنكم إذن كرافي وحا سميسان فالآن إمكذا باشروهن دمركي أقلبوضا وابتقوا وحا كرادسان ما كتب الله لكم إلها وحيد كقرأ وكلوا عنا واشربوا عبا حتى يتبين لكم شاروا إذن عضاضه الخيط الأبيض ميق عدي من الخيط الأسود ميق مدو شاروا كم مغضي كالبحان ميق عضو من الفجر واقع كبيانسن ثم انت كدب مركي واقع دلاعي كدب أتم الصيام صومكي وضع واحد ما يسترتان صومكي إلى الليل إلى لقاقاري هبينك وقرح دعاه ولا تباشروهن حاسسك هوك الموننا أما وحكا دينا وأنتم عاكفون إذنك أو كنجي أو فرديو دقن في مساجد ده تلك حدود الله تاسوا حدك إلهي يا أحكامته ذين دقايا فلا تقربوها هودواننا كذلك يبين الله السدى سوء الهيد كو عضينا يا آياته آياتي سوحوا عضينا يا للناس ذاتك لعلهم يتقون وحلق الرجينا يا إن إلهي كعب صدان ولا تأكلوا أموالكم حوله إنها كوكلا عنين بينكم نحذين بالباطل قردر وتدلوا بها كل روشنا إلى الحكام مدحرة لتأكلوا سيا أو عنتان فريقا قيب من أموال الناس ذاتك حوله ذا بالإثم سيا قردر وعنتان سداها السميننا وأنتم تعلمون إذنكو قرانيا لبدا آيادودا ودا السعودة آياده هore waxay gabagabow tahay axkaamtii bisha Ramadaan iyo soomka iyo maxaa xalaal qofka maxaa ka xaraam aayada ku xigtaana waxay sheegaysaa bisha Ramadaan si ay taabagal u noqoto aqbalkeedii ijaabadeedu kugu hagaagaan waxyaabaha laga ilaalinayo waxa kamid ah xaaraanta cunideeda iyo xoolaha dadka hadal xaraan quuta tahay soomkaagii wuxuu noqday foosto gunla ayaa dhaaminaysa munaasabada ka dhaxaysa waa taaway si kala hadii loo eego hadii xurmo khaasi jirto hunaaka xurmatun caama bisha Ramadaan dhexdeeda waxyaabo la idinka xaaraantinimeeyay baa jiro oo khaas ah waxyaabo la idinka xaaraantinimeeyo caamihina way jiraan ku darsada taana labada munaasabo way noqon kartaa sidaynu horeba u soo tilmaanay waxa jiray islaamka bilowgiisii markii la waajibiyay soomka qofku 24 saacadood hal mar buu wax cuni karay marka afurka hadduu dhaafo oo uu seexdo ama wax ka sii noqdaan waxa dhacaysa inuu maalinta dambe ugu bixiyo oo fursad kale haysan marka nin asxaabta kamid ah baa waqtigii seexday maalintii oo dhan buu shaqaynayay xaaskii baa ka soo gaarsiin weyda afurkii wuu seexday kadibna sidii buu ku soomay dhibaato soo gaadhay ilaahay adoomihiisa mar walba ka warhaya fudaydintan uu soo dajiyay marka inta la soomayaa waxa weeye inta ay qoraxdu soo jeedo qoraxdu inta ay soo jeedo ayuun baa la soomayaa marka waagu dilaacu ka soo bilaabmaya waagu dambe waliba ee la yiraahdo fajru saad
waxaanu ku egyahay soomku marka ay qoraxdu dam tidhaahdo casaanku inuu tagayo guduudku maaha laakiin waa inay qoraxdu dam tidhaahdo uxilla lakum laylata siyaam arrafathu ilaa nisaa'ikum marka aayaddu waxay tilmaamaysaa soomkii inuu leeyahay waxyaabo buriya markii hore waxaynu soo wadnay binaagii cibaadadii oo la dhisayo binaa walibana ama dhismo waliba wuxuu leeyahay uu u baahan in laga ilaaliyo hadminta wixii duminaya diinteennuna waa alhadbu walbinaa diin la-aantana way dumisaa wixii wanaagsana saxanna way dhistaa diintu marka waxyaabaha duminaya waxaa ka mid ah ama buriye soomka marka aayaddan iyo la eega axaadiidta kaleba axaadiidta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaa 7 shay inta la isku waafaqsan yahay 7daas wey halkan ilaahay uu ku sheegay qaar ka mid oo waa cunista iyo cabidda oo waliba ogaana al-aklu wash-shurbu camda qofku waxinu ogaanu cuno ogaana u cabo soomkii uu kaga jabaya waxa kale rasuulku ku daray sallallahu alayhi wasallam iska hun qaacinta iyadana waa kaga jabaya waxa saddexaad oo halkan aynu ku haynaayo ku jabaya galmada dumarkii loo galboodo maadaama ilaahay maalintii mamnuucay habeenkiina xalaaleeyay hadduu qofku maalintii galmo sameeyo soomkiisii wuu dhintay kafaara gudna waa looga baahan yahay qalle biyihii tarankoo qofku iska keenaa taana raacaya ogaan isaga keena maaha hadday ka yimaadaan maalintii waxyaabaha burinaya ka mida dhiiggii dhalmada iyo dhiiggii caadada xadiidka saxiixa waxay ku sugan dumarkii saxaabiyaadku waxay leeyihin كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة gabadhu markay dhiiga gaal leedahay salaada lama oran jirin soo qaleeyo laakiin waxaan la fari jiray soomka inaan soo qalayno xadiidka saxiixa ah waxa toddobaad oo burinaya nacuudu billahi minha ar-ridda qofku inuu islaamka ka baxo diintu iska caay rasuulka malaa'ikta ilaahay ayuu caay isagoo sooma dee alla yidhi la in ashragta la yaxbadanna camalu haddaad gaalnimo ku dhacdo camalkaagii wuu buray soomkii salaadii xajkii weysadii xaaskii wixii oo dhan way bureen ila waa balaayo weyne waa micwal ama dubbe ka weyni ma jiro oo lagu dhufto diinta toddobadaa shay baa la isku waafaqsan inuu burinayso inay burinayaan soomka mubdilaadka markaynu ka soo gudubno waxa ilaahay uu fasaxay arrafathu ilaa nisaa'ikum ayaa habeenkii la idin xalaaleeyay habeen oo dhan waa xalaal ilaahay baana uu xalaaleeyo waxna xaaraantinimeeya sida uu aayadka ku cadeeyay rafadku markiisa hore wuxuu ahaa hadallada laga yara xishoodo ama xodxodashada dumarka iyo wixii lamid ah marka ninkii xaaskiisa markay dhex marayso arrintaas galmada iyo wixii la xidhiidhaaba waa xalaal habeenkii xukumka wuxuu kaasii dhaadhacay ku sii macnaada marka ciladiisa lagu sheego marar badan nusuustu waxa quraanku wuxuu baraa iyo sunnada nabiguba xukum baa la sheegaya ciladiisa iyo sababtii baa la sheegaya mararka qaar koodna cilada waa laga yaabaa si dadban loo fahmi karo hunna libaasun wa antum libaasun lahun hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun dee la idin kala ilaalin kari maayo waa nin yahuudi iyo gabadh yahuugeed xagee kala dhamaanaya marka ma kala maaray misaan bil dhan dhar la'aan ku jiri kari maysidee habeenkii ka warhay wey habeenkii jaaniska ka faa'iidayso واي بلدم كل ممنوع مرغوب عليه شيء أنا هدي قفك اللود إذا مركزو أيو سراعته مركز لقى جوتشي رمضان تي ولا جاي أباين ده أهرمك على باب العب معه تعال كي بس هذا النقطة قلنا لباس لكم وأنتم لباس لهم سدا سيت هذا رجع يد مرتين ما كلام مار ميان وأي أركم حلقوا قرية dheg xumada ka timaada qaawanaanta cawrada guur la'aantuna waxa ay leedahay xaas la'aantuna iyaduna sidaas oo kale cawr ay leedahay cawro iyo ishiyo meel eegagta iyo ceeba lagu dhaco waxaas ay leedahay waxaas Ilaahay ku asturaa subxaanahu wa ta'ala waxay sheegaysaa labada qof dadka kale way kala xishoonayaan laakiin iyagu maya nin iyo dharkii ma kala dhowrsana
وباهي وين باجرته marka ilaahay subhanahu wa ta'ala xikmada meesha ku jirta ayuu noo xusay taasi waa baab kale zawaajka iyo arrimihiisa iyo asraarta ku jirta weeye ciladin weeye tan علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وأصحابتي قاركود باكو دحاي أصحابتي واوينا وليبا كميدا يا قاركود حاسكي قلمو سميين habeennimadii hadii ay soo cawdeena ilaahay baaba sheegay inuu og yahay qofku inuu naftiisa khiyaameeyo waa inuu wax loo diiday ku dhacay dadka sidoo khiyaamaysan naftaadana wada khiyaameyn karta waxaad ogaataa dad xaraan ku dhacdo naftaada khiyaameynaysa khiyaamo khatar badan weey inaad adigu hoos u socoto naftaadii aad khiyaamaysa markaad macsiyo iyo dambi ku dhacdo amood inaad ilaahay wax yeeshay subhanahu wa ta'ala علم الله إلهي هربا ووغا لكن تاني وحوية وح مغضي بين نقطة صوبة بحيبة فتاب عليكم وعفى عنكم وعويان إلهي بأوقب الشارع الضوامها إنو عفيي أو كتوب بلي فالآن باشروهن مباشرة تاتاب الشرع هاي لكن مكوا قلمدي مركا قرآن كوحي نبريا marka wax la sheegayo afgobaadsiga in la ogaado oo aan afka lagu ballaarinin marka wax la sheegayo adigoo dadkii wax fahamsiinaya haddana guud marka adiga arkay quraanku aadaabtu ina barayo arrafathu iyo baashiruhunna falamma taghashaha waxa soo dham waa erayo af wanaagsanaanaho waxyigu ina barayo وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن وحي شيء سائمك وحي هره كذب هذا أي حلال هبينكي تمر أمر كاسنا واجب معها وهل كان والله يمرو ده جودا كسارة يا ما هي وحوي وأمر الإباح فسح بكوت حتى فسح بالوجود أي على قاعدين وحي إلى وابتغوا ما كتب الله لكم وحي إلى هيدين كقرير هذه ومحيا ده وحي لو جرسدار ده maxaa loo guursadaa wuxuu qofkii u guursanayaa inuu diin iyo dunyaba helo diin iyo dunyo iyo dad baynu helo qofkii diin buu ka helayaa oo ajri buu helayaa ajri wa fi bad'i ahadikum sadaqa rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam miskiin hadduu xaaskiisa u garmoonayo dee sadaqu helaya kii asxaabta ka qancinaya tusaale u soo qaadanaya wixii ilaahay idin qorayo dee awlaadiya asbaabta iyo arrimaha loo guursadaa buu ka mid yahay inuu qofkii awlaad u baahan yahay ku abtirsado u shafaaco qaado haluma jar wabtaguu ma kataba Allahu lakum iyanu qofkii ku asturnaado hamadiisii uu guto wixii ilaahay idin qadaray ka raadsada وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر عند إيا عبدنا وحويان فصح بينك أمر كاسي سقوا واجبه هبينك عنا الآن مايا إن تلا هذا وصال بان سمينيا وصال أيضا وصال كويت ستة بن بوديدس وصال كوا حويان صوم كله يسكو حريريا ما أنت تسوميسا عاود تسوميسا بالربا تسوميسا هبين دمات تسوميسا عنا بشان عشاء عنيس أصحاب تودي النبي عليه الصلاة والسلام الوصال حرام نفتي والله ربايا كواحين لها aan ku saarin hay isku dhibin marka habeenkii inaad cuntood wax cabto de wisaalka oo aanad soomkii xiriirinin waajib weey cunida iyo cabida waxa horeynaya cunida cabiduna way ku xigaysaa wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbu almusrifin waxa oran jireen berigii hore qofku markuu wax cuna 20 daqiiqo kadib xaab laakiin dakaatira islaamaha cilmiga caafimaadkana aad u yaqaana waxay yiraahdeen qofku markuu wax cunayo inuu wax abaaba sax oo deeqalaadada marka imika sawirka lagu shubo intoo lagu rido sawirka dib yaa laga daayo ka war way fariisanaya sawirkaas uu fariisanaya marka inuu wixii lukid noqdo wax dareera ah oo carabka iyo candhuufta iyo waxa cabaysaba lagu jilciyaa hadmiga iyo caloosha u fiican bayna doctor suuriya oo khabiira markuu ka waramaya arintan ijaaska cilmiga asaas u sheegaya waana waawul jamaa waawda waxa la yiraahdo mutlaqul jamci bay keenta alwaaw tufiid mutlaq aljamci labada shay ay isku cadfan ee waawga la isugu cadfaa hal mar bay wada dhacaa cuna oo caba marka 20ka hore maqli jirtay iska liqbay kuleey wakulu washrabu
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وميق عادي ميق مدو من الفجر بقى سفرك ملق مرقارو انت من الفجر كوكاي markii hore waxa soo degtay aayado aan min al-fajr lahayn ila miiqa cadiya miiqa madoobideen kala baxan waaga inta cadaanka iyo inta madowga habeenkii jeeray kala soocmaa oo meeshu maalin ay ku cadaato in asxaabiga waa kii xariga hoos barkimada hoosteeda iska gashaday eegay un balintu bahalkaasi aad u iftiimayo waa kii nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam barkimadaadu way ballaarantay isagoo la kaftamay ama waad qadaad weynta hore waxba uma fahmaysa markii dabeetana arintaasi timid malagu margaar uu la soo safray inta min al-fajr marka asxaabigii waxyiga qoray rasuulku wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam laxaq ku samee shayga barigii hore cilmiga kitaaba loo yaqaanay laxaq oo ahaa halkay ku haboontayn la dhaxgaliyo marka labada dhexdooda galib al-aswad thumma atimmu labada dhexdooda galib marka waa ku bayaansantay ميق عدل الشيء ومالك وكذلك من الليل بايس نشره لكن باب الاكتفاء بالله ميق مدوية ميق عد مرتي ميق عطا لغو شيء ميق مدو بانا وشره معناه ليد عد يليد مدو ليد كعطا لغو شيء ليد كمدو بنا وشره أركان الله بدل ليد شره كلا بحياوني وحياد عطينا يسا فجر قال قادنا يا ككوري سوتها جماعة واك تضبن بميق الله أما ليد كعطله حتى يتبين أي هل كان لها استعماله حق الضمانة إلى الليل بو استعماله حق هراء مركز صوم كلا بلابي حتى هذا كجرت مركز صوم كلا لمين إلى هذا كجرت مركز علمي عربي وحي كلا فائديان حتى هذا وحي إلى الغاية دي مغيقة اسلحك له شيء قال السوى ذي يكلا قص عدي واسلحك ليه إلى هذا أنا أفكي سساريا هذا مكتل هذا سرت حتى المدينة وانسي السعودي حتى المدينة إلى أن مقالديها ضحك علي بقى فاهمية لكن سرت إلى المدينة أدي هذا إلى المدينة تبان سعودي كونها نسكتها قوي مركز كان يسكوا لهاي النسية وحوي مركز حراء هبين كيات وقت حق عنيسته اسكوت إلى ما شو وعت هذا ويكل عطاته وشكي قابح حقا دنبر لكن iyana si aad jaaniska cunada uga faa'iideysato waxbaha sugin inta casaan ama say oran jireen xaad u qarsoomayso odayaasheeni hore miyiga waxay oran jireen ilaa inta xaad u qarsoomayso soomka waa la wadaya ta looma baahnay waa ila leeyli habeenka marka saa u gasho ee qorraxdu dhacdo ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد دمرك هاو قلمونينو هلا عيارين idinkoo masaajidada degan waa cibaado la yiraahdo i'tikaaf وصومك هذا فضل بدن النبي قلنا طبعا كدم بشهر رمضان وسمين شري وعبادة آية مركا إلهي وكو إشاري أحكام بدن بولي اعتكاف مركا أصل كيس إلى هلك برسلنا النقضاء مرنا واجب مركو قفك يسكو واجب يوا واجب واعتكاف كي مندور كهاي أنت كلنا واصلنا هذا وعرض متتابعية متقطع لبض أبو النقضاء اعتكاف سكو حريرسن كون النبي قسمين شري يمد قوان قلب الظروف تقفك سيدي تهاي نبينا ده سندي هرا طبعا بو كدغي جيره markii dama 20 buu ka dhigay sallallahu alayhi wasallam ihtikafku mar Ramadan buu ku kooban yahay misamaya labadaba waa la yiri laakiin Ramadan buu fadli badan yahay bilaha kale waa la ihtikaf karaa ma wuxuu ku gooni yahay saddexda masjida fadliga badan xaramka ka Madiina iyo Aqsa mise masaajidada dhan maya waxay aayadu ku caday masaajidada dhan al-masajid lafdu al-masajid أشك كترته وعهد ذهني بين العلماء ده معناه ده وحوي مسجد كلا أقنسي مسجد نمو الجماعة هذا اللي قلت كذا أما جماعة واحد شرد ده مولع صوما حافظه إسكالله هنا أما مهرد ليد ميلها إسكالله المسجد كلامه هذا مولع بالله أيام ناشي رأي ده قف مسكيت كنيه مركب ميل كستاء جماعة اللي قلت كنيه اعتكاف كذا اللي قلت فلينيه عبادة أنا ولود ده لا آداب تهذا نوال إعلانه تلك حدود الله فلا تقربوها هناك حرام محرمات وواجبات وحا هذه يتشير محرمات كامركو قرآن كتلماما يوحولا تلك حدود الله فلا تقربوها واحد إلهي ودقي أولا إليها قلينا انت تقشي اسكدا ايو هاو دواني مركب فلا تقربوها وحارانتا واستعمالا تلك حدود الله فلا تعتدوها ينوى واجباتك
labada munaasabada kala leeyay wixii waajibaada waynu ku dhex jirnaa iyadana xad baa inagu xeeran lagu yiraahdo jeexino ha ka gudbi marka waa laba xad mid dushu inaga xiran yahay waa waajibaadka in ku jirno quraanku wuxuu isticmaalaa fala ta'taduha midina waxa weeye mid la inaga mamnuucayo de sida wadamadu adiga arkayo xaday kala leeyay marka booliskoodii iyo ciidamadoodu inaad u soo dhawaato ma ogola waa xad ka xiran oo fiisa u baahan fiisana de ilaahay baa bixiyay subhanahu wa ta'ala xalaanta de goortu xalaalayn bay xalaal noqon kartaa xaalada daruura marka xadka isaga ka xiran oo muharramaadkiya marka waxa muharramaad laga hadlayna fala taqrabu haawi labada xad hadiyo jeer zoon baa jira u dhaxeeya Soomaal marka ha u dhawaan yaad cagaha ka guban waka nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam leh ملك ولبا بقر ولبا سير ولا سيرها إلهي ومحارمتيس مركا فرصة مناسبة كلالين فلا تقربوها فلا تعتدوها لطيفة كترتا تاسب إلينا علبا كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون سلا سؤالها آياتي سددك وعلى عطينا يا وحل لقسوا إنا إلهي كعب صلاة قفك عبصنا يا أنا وقفك حاران تحدي دي أنقلين واجبك حدك سينان كبح والله سبحانه وتعالى يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان